رئيس الوزراء حكومة فدرالka Soomaaliya weheliyaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee xukuumadda iyo saraakiil ka tirsan ciidanka ayaa booqasho ugu tagay qaar ka mid ah ciidanka howlgalka xasilinta caasimadda si uu u dhiirigeliyo inay sii wadaan howlgalka lagu xasilinayo amniga Muqdisho aysan ku niyad jabin shilkii isku dhacay dhexmaray ciidamada dawladda qaarkood xildhibaan Cabdifataax Qaasim Maxamuud oo kamid ah xubnaha dhalinyarada ee ku jira golaha shacabka ayaa u sheegay ciidanka in ra'iisul wasaaraha ay ku taageerayaan ka warqabka ciidanka dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku jira ciidankana looga baahan yahay in dalka ay horseedaan horumar si loo baajiyo tahriibka iyo dhibaatooyinka kale ee haysta dhalinyarada Soomaaliyeed ogaada ra'iisul wasaaraha waxa waaye mukayf saaxiib lama aha wuxuu saaxiib leeyahay nolosha idinka aad ku nooshihiin inuu idin kula noolaado waxaad idinka qabtaan inuu idin la qabo annagana midaas ayaan ku taageeranaa dalkeenana inaanan u ogolaanin maanta cid burburinaysa boqolkiiba 70 waxa la yiraahdaa dhalinyaro Soomahan soo ayaan daramaha boqolkiiba 30 inayna adeegsato annaga isku keenlayso soo ayaan daramaha in loo adeegsado qabyaalad iyo qurun maanta dhalinyaradaas 140 ay la soo daayay ma qabiila soo daayay qabiil soo ma jirin intaan dawlad la'aanta aynu ahayn ma wax buu u qabtay maanta cid wax qabatay waa dawladnimada qoriga waxaad u sidataan qabiil ma aha qoriga waxaad u sidataan qaran daladaas qaranka ayaana gabigeena ku wada badbaadi karnaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa xusay in rajada ummadda Soomaaliyeed ay yihiin ciidanka si horumar loo gaarsiiyo dalkeena loo baahan yahay in amniga laga shaqeeyo isagoo uga tacsiyay ciidamada saaxiibadoodii ku geeriyooday isku dhici dhexmaray maanta waxaan idin kugu mid marka aniga intaan soo baxo aan idin kaga tacsiyeeyo dhibkeedin ku dhacay aan idin sheega laakiin sababta hal bil ka badan uusan qarax u dhacin sababtay u yaraatay dadkii la leen jiray sababta amni iyo kala dambeyn uu u bilowday inuu magaaladan ku soo noqdo sababta ummadda rajadeedu kor ay ugu kacday sababta iftiin cusub oo Soomaalinimo ay u muuqato waa shaqadii idinka aa qabateen shaqada waa muuqataa marka shaqada aa qabanaysaan idinka ayaa ah rajada ummadda Soomaaliyeed si wadanka dhaqaale u yimaadaan waa in amniga wax laga qabtaa si jaamacado iyo isbitaallo iyo iskuulo loo dhiso waa in amniga wax laga qabtaa si qabyaaladda iyo qabiilka loo zuuliyo waa in amniga wax laga qabtaa si sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed loo soo celiyo waa in amniga wax laga qabtaa wax walba amnigu ka bilowda waa bilowdaan shaqadii idinkoo aan ogahay inaad ku shaqaysiin daruuf aad u adag sababta mar walba aan idinkugu soo noqnoqono marka waxay tahay inaan idin tusno inaan raalli ka nahay shaqada ah haysaan mudane Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaraha dalka ayaa ciidanka ku booriyay inay laban dagaalka ay kula jiraan cadawga nabadiidka argagixisada ee Al-Shabaab dadka shacabkana ay la dhaqmaan si sharaf iyo karaamo ay ku jirto haliyeeye inay u soo baxaan Soomaa haliyeeyada idinka waa hadda idinka marka dadka la fiirsanayo aatiin qalbigiina bir inuu ahaado waa idinka bir shacabka marka la dhaqmaysaan waa inaa sharaf iyo wanaag tusisaan shabaabka marka la dhaqmaysaanna waa inaad bir calool adeeg aad kula dhaqantaan waa inaad u dagaalantaan idinkoo gumaysi dalka ka xoreynayo kale cadow waaye shabaab cadow waaye maal meesha ay soo galaan hoteelka ay soo galaan ay shabaabku imaanayaan miyay kala og yihiin dadka ku jira hadday hooyo ku jirto hadday aabbo ku jirto haddii nin wax barta ku jiro haddii gabar wax barta ku jirto hadday carruur ku jirto haddii qof jiran ku jirto hadday isbitaal tahay waa qarxinayaan Soomaa macnaheedu waxay tahay jiritaanka ummadda Soomaaliyeed ay ka soo horjeedaan Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.